inay ka waantoobaan oo aanay ku kicin intaas ka bacdi taariikhdu markay ahayd 14 bishii 12 2019 waxaa dambi ka dhacay magaalada Wajaale askari booliska ah ayaa si wada kaca isagoo garashadiisa iyo maankiisa leh wuxuu u dilay marxuun ayuu halka ku dilay Soomaaliland ciidanka booliisku gacanta ay ku soo dhigeen ninkii faldameedka geystay iyo labadii askari ee la socday ee burcadnimada geystay iyaguna way xidhan yihiin waxaana markiiba loo gudbiyay xabsiga dhexe Hargeysa askarigii dambigaasi galay waa qiraal sida uu qabo qodobka 68 ee xalkaabka ciqaabta waxaana kiiskoodii loo gudbiyay maxkamadda iyo xeerlaaninta awood dawla si degdeg ah ayaana loo horkeeni doonaa ciidansadii falkaasi geystay oo maxkamadda lagu horgeeyay iyadoo lagu qaaday dowladda dambiga u geystay markii dilku dhacay ka bacdi waxa Wajaale ka dhacay banaanbax ay dadweynuhu sameeyeen hase yeeshee ciidanka booliisku waxay ka hortageen oo ay si adag u xakameeyeen si aanu magaalada shoobrahaasi ugu faafin magaalada Wajaale oo ah magaalo ganacsi dadkii shoobraha sameeyay oo aan cid kalena uga faa'iideysan kula soo dhaxdhooban maadaama oo ay tahay meel ganacsi oo ah isha Soomaaliland ay ku hayso si adag ay uga hortageen taliyaha ciidanka booliisku si adag ayuu u amaanay ciidankii booliiska ee saldhigga Wajaale ee sida xilkasnimada leh ee waayo-aragnimada leh waxa kameeyay banaanbaxaasi ee ku faafi lahaa magaalada isagoo banaanbixii socdo ayaa niman ka tirsan ciidanka booliisku waxay farasaan ku sameeyeen qof dumar ah oo ka mid ahayd kuwii banaanbaxa sameeyay iyadoo baraha bulshadana si khaldan loogu faafiyay falkaasi taliyaha ciidanka booliisku wuxuu markiiba amar ku bixiyay in la soo qabto ciidankii farasaaray islaantaasi waana la soo qabtay way xidhan yihiin waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xeerlaaninta awood dawla qaadista dambigaasi taliyaha ciidanka booliisku mar kasta oo khudbad jeedinayo ama uu ciidanka la hadlayo hadday noqoto af iyo hadday noqoto qoraal wuxuu ciidanka booliisku ku booriyaa inay ilaaliyaan xuquuqaha dastuuriga ah ee ay muwaadiniintu leeyihiin sida ay qabaan qodobada 25 26 27 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka booliisku wuxuu si mug leh u amaanayaa dadweynaha reer Soomaaliland ee xalaasha ah ee sida xilkasnimada leh ee wanaagsan oo la shaqeeya ciidanka booliiska ilaahay casaawajilaha ayna dad islaamay naga dhigay iyo mahadle waxaana biliiska dawladda Soomaaliland iyo biliiskeeda baan ugu mahadnaqaynaa sidii diiranayd ee ay uga hawl galeen gaadhiga soo qabashadiisa intaanaan halay gaadhin bay waxay gacanta lagu dhigay si mucjisaaba loo qabtay wadanka oo dhanna biliisku isku xidhay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa oo ay mahadsan yihiin si sharaf lana way soo qabteen hawlgalkooduna mid cajaa'ib leh oo la yaab leh buu ahaa gaadhiga waxa la baxay saddexdii habeenimo toddobadiina biliisku gacanta ayay ku hayeen ayagoo ku hareeraysan markiiba si degdeg ah u qabteen